bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kuna wacan wanaagsan daawadayaal idilkiina meel walba aad joogtaan iyo si walbaba maqalkiina idiin soo gaarayo maalin wanaagsan ayaa idin leeyahay waxaad kusoo dhawaataan marka wararkii ugu waaweynaa suuqa hadalka ka daawataan janaalka Goal TV waxyaabaha ugu weyn maanta waxaa kamid ah magacyada BBC-da ku xusan waa Kiba Lingard winner Bale Gabriel iyo ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaa kamid ah magacyada ugu waaweyn ee maanta suuqa la hadal hayo macalinka hogaamiye kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard ayaa markaana doorbidaya goolhaya Kiba in uu bedel kaga dhigo kooxda Chelsea si uu ugu soo qaato mid kamid ah ciyaartoyda ugu fiican ee shabaqada u ilaaliya kooxaha ka ciyaara horyaalka Premier League kaas oo u ciyaar naadiga Bale ninka lagu magacaabo Bobby oo 27 sano jir ah majaladaha Mirror iyo Express ayaana sheekadani daabacaya Lampard wuxuu damacsan yahay sano jirka reer Spanish in iskaga diray garoonka Stamford Bridge isagoo kusoo bedelanaya goolaha naadiga Bale ninka lagu magacaabo Bobby oo 7 sano jir Express iyo Daily Mirror ayaana sheekadaasi daabacaysa ciyaaraanka khadka dhexe kooxda Leicester City James Maddison ayaa markaan la soo gabagabay karaa heshiiska oo kooxdiisa qandaraas cusub ugu duuyi karo Leicester City Telegraph ayaa maanta sheekadaas daabacaysa 3 sano jirkan ayaa macquul tahay inuu heshiis u siiyo kooxda ka arrimsan garoonka King Power Stadium ee Leicester City Atletico Madrid iyo Roma ayaa markaan aad u raadinaya ciyaaryahanka kooxda Manchester United Jesse Lingard 7 sano jirkan ayaa macquul tahay in uu suuqa soo aado iskaga hayaan kooxda maadaama hanaankii waxaana uu sarkaysan garoonka Old Trafford waxaana aad iskugu haysta kooxaha Atletico Madrid iyo Roma ayaana aad u xiisanay ESPN ayaana sheekadaasi saaka daabacaysa Liverpool iyo Manchester United iyo Chelsea ayaa markaan aad u xiisanay ciyaaryahan Timo Werner 3 sano jirkan oo ciyaara kooxda reer Germany RB Leipzig ayaana macquul tahay in iskaga hayaan kooxda midkood uu ku biro kooxaha reer England 25 gool ayuu dhaliyay xil ciyaareedkan kooxdiisa ee kubadda cagta RB Leipzig Keker oo ka soo baxay dalka ee Germany oo soo xiganaysa Evan Standard ayaana sheekadaasi maanta qalinka u qaadatay kooxda kubadda cagta Manchester City macalinkeeda Pep Guardiola ayaa markaan soo jeedinaya in Raheem Sterling uu kusoo bilaabo kara ama kusoo bilowday kulankii axad ee guuldarada ay kala kulmeen adiga Tottenham Hotspur inkastoo kooxda Manchester City ay guuldaro xanuun badan ay kala kulmeen kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur dhanka kalena Real Madrid ciyaaryahankeeda reer Wales ee Gareth Bale ayaa macquul tahay in iskaga haya kooxdan 30 sano jirkan ayaa macquul tahay inuu ku biiro horyaalka China Super League ama horyaalka Major League Soccer oo dalka Mareykanka inkastoo Premier League xitaa kooxaha qaar ay xiiseynayaan ciyaaryahankan balse sanadka soo aadan ama sanadkan ayuuna ka hayaami karaa kooxda cadaadka 30 jirkan reer Wales Gareth Bale wuxuu ugu soo biiray naadiga Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur ayuu ugu soo biiray Real Madrid kooxaha Arsenal iyo Everton ayaa markaan ku khasaaraya ciyaaryahanka reer Brazil ee daafaca ugu ciyaar naadiga Lille ninka lagu magacaabo Gabriel labadan kooxood ayaa aad u xiiseynaya ciyaaryahanka 2 sano jirka in soo qaataan bishii January laakiin ku fashilmeen inay helayaan adeega Leicester Sports oo dalka Faransa ka soo baxday ayaana sheekadani daabacaysa باقي جقمان عياريان كده ويركو عيار كيليان إمبامبي أيانا مركان سوجي ذكرى إنه كوحدي إسكاجها يا توماس توجل أيانا إنه والله اللي عياريان كان يسوق ربع إن حل عيارد ونكسر وكوخات وكوحة قارة يوروب لولا أذقنا وقول جول.com أيانا شكل سيدابع عيسى لكن كلنا وحياة أقوى ريال مدريد أيانا ديارو إنه ودق أخذ سوحي جرينت عياران كيليان إمبامبي كاسو كجدو سان جرون كباك ذا برانس يكون على PSG مونتو ديبورتيفو يكسب عدالك فرنسا أيانا شكل سي حجان عيسى عرين تاني sheekooyinka lagu weerar maanta suuqa waxaa kamid ah Manchester United ayaa magaca qoondareynaysa ciyaaraanka Brighton of Albion oo ciyaarninka lagu magacaabo Morian 36 sano jirkan ay bishii January rabeen inay soo qaataan laakiin ku fashilmeen balse wali waxay ku rajo weeyeen inay helaan adeega ciyaaraanka lagu magacaabo Morian kaas oo kamid ah ciyaartooyda ugu fiican ee kooxda Brighton u ciyaara Mirror ayaana sidaasi qoraysa waa sheekooyinka ugu weyn ayaana kuwaasi ahayeen daawade ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda haddaba haddii aad ku cusubtaa bartaan Goal TV subscribe inoo saar like share ilaawin waad maasantiin la socodka warka ugu dambeeya suuqa kala iibsiga